الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاولyaal waxa weeyaan waa qaybtii labaad markii dhaweyd ama casharkii hore waxaan aragnay hard diskyadii ayaynu gelinay serverkeenii Huawei ahaa labada diskiyeen geliyay iminka haddaba waxaan jeclaan lahaa insha Allah maadaama aynu hard diskadii gelinay inaynu hard diskyada aynu storage pool wax la yiraahdo oo ku jira Windows Server aynu markaa aynu sameeyno storage pool kusan sheegnay waa diskyadii oo la isu geeyay oo dadna markaa si looga dhigo hal diski ama ay u ekaadaan hal hard disk oo baaxadeedu weyn tahay iyadoo ay ka kooban yihiin hard disk fara badan waxaan tegaynaa waxaan tegi karnaa computer management waxaan tegaynaa marka waxaad furaysaa server manager kaaga server manager markaad server manager furtid waxaad tegaysaa tools ka bacdina waxaad furaysaa computer management computer management markaan furno waa soo socdaa waa kan computer management markaan furnayo waxaan tegaynaa disk management oo halkan hoose ku taalo disk management marka waxay ku tusaysaa hard diskada computerkaaga ku jira marka labadii hard disk aan geliyay disk management markaan taabtay waa kan soo qabtay labadii disk marka wuxuu leeyahay laba disk bandar ayaan arkay oo aanan hore ogeyn labadan disk miyaan initialize garayaa marka labada disk waan initialize waxa weeyaan waa sidii in la shidayo oo kale si ay computerku u isticmaalo laba nooc baa laga dhigi karaa marka la initialize garaynayo ama la shidayo hard diskiga siyaadada ah MBR waa master boot record waxa weeyaan waa systemkii hore ama qaabkii hore ee Windows yo ay u isticmaali jireen hard diskada qaabka runtii waa laga fiican yahay oo markaad Windows-kaaga aad ku shubanaysid computerka haddii aad master boot record aad ka dhigtid hard diskigaaga hadhow haddii boot recordkaasi uu kharaabo ama ay wax ka sii noqdaan Windows-kaaga wuu ka kacweeyay marka hadhow inaad dib ugu wada shubtido systemkii aad computerka hard diskiga dib ugu wada shubtid bay noqonaysaa marka waa laga fiican yahay master boot recordka guided partition table-ka ayaa iminka tay Windows-ku nooca ay Windows-ku ama Microsoft ay dadka yiraahdaan isticmaala waayahay labadani disk 2 iyo 3 waanu shidaynaa markaanu shidno waxa weeyaan waka disk 2 iyo disk 3 computerku arkay haddaba waxaanu ku noqonaynaa server manager-keenii file and storage services aynu tegaynaa oo xaggan bidixda ah file and storage services markaan tagno waxaan tegaynaa disks hard diskidana markaa ayaynu tusayaa waa kuwa hard diskidana markaa ku wada jiro oo dhan labadii ugu dambeeyay aynu gelinay waxa weeyaan waa kuwa weeyaan 2.182.18 aynu leeyahay waayahay allahumma salli ala muhammad disk 0 iyo disk 1 waa labadii hore ugu sii jiray oo 270 279 iyo 279 laakiin labadan aan doonaya inaan isu geeyo oo aan 4 terabyte ka dhigo si ay markaa hal disk ay ugu ekaadaan oo baaxadeedu ay aad u weyn tahay storage pool bay markaa u baahanay inaan sameeyo storage pool haddaan taabto waad aragtaa wax storage pool halkan iguma jiraan haddaba waxaan leeyahay inaga storage poolkii galnay waxba kuma jiraan halkaa marka maadaama aanay waxba ku jirin waxaan u baahanahay mid cusub sameyno right click baan ku sameynaynaa new storage pool baan odhanaynaa waayahay marka wizardkana isfuraya wizardku waxa weeyaan waa safxadda aad markaa u baahantahay inaad ka gudubtid marba si aad u samaysid storage poolka waxaan u sameynaynaa magac tan waxaan u bixinayaa CCTV storage pool magacaas isaga bixinayaa waayahay next baan leeyahay marka labadii disk way soo qabtay labadaba waan dooranay labadaba igu dar waxa igu yiri 4 terabyte halka waxaad aragtaa wuxuu igu yiri 4 terabyte baan kaaga dhigayaa waayahay marka hal disk oo 4 terabyte ay wakaanaysa halkan marba laba disk ka isticmaali lahaayaan laba disk iyo 2 terabyte ka isticmaali
ka soco informationkii oo ii soo koobay wuxuu markaa ay sabab u samayn doonto create barnamij waay markuu intaa dhammeeyo kadib waxaan u baahannahay haddaba hard disk inaynu isticmaali karno deelan hard disk 4 terabyte ayaynu samaysanay marka storage poolkeeni waynu samaynay marka waxaan u baahanahay inaan haddaba new virtual disk samayno storage poolkeena ayaan right click ku samaynaynaa waxaan leenahay new virtual disk disk 4.36 terabyte baynu ina tusaya inaynu haysano waayahay taasaynu isticmaalaynaa wizard baa isfuray markaa safxaddii informationkii la raacaya baa isfurtay ay kuu sharaxaysay virtual disk wuxuu yahay waynu ka soconaynaa magac baynu bixinaynaa magacaas again kii horan baan lamid ka mid dhigaya insha allah saasaa baynu daynayaa ken-cctv simple baan ka dhigayaa wax redundancy uma baahni oo waxa weeyaan simpleku waa sidii iska hard disk caadi oo keliya oo markaa haddii ay wax kasii noqdaan informationkaagu uu lumayo runtii taa laga fiican mirarku waxay kaga duwan tahay informationkii labada hard diskba laba jeer ayuu ku qorayaa oo ku save garaynayaa markaa simplekan iska dooranayaa fixed ayaan odhanayaa sababtoo ah waxaan doonaya inaan spaceka oo dhan isticmaalo size 4.36 baan haystaa soo maha marka waxaan odhanayaa 4.36 ayaan ka dhiganaya 4.36 terabyte baan u bedelaya halkaa ma maximum size baan isku odhan karaa ya waay marka wata virtual diskka ayuu ii samaynayaa haddii ilaahay ka dhigo create baan leeyahay markuu haddaba virtual hard diskan uu ii sameeyo 4.36 terabyte-ka waxaan samaynaynaa haddaba new volume baynu samaynaynaa markaa waay new volumekii baa yimi hard diskeenii baynu tusayaa waynu dooranaynaa sizekii baynu siiyey waynu intiisaasaynu deynaynaa letter buu yidhi u dooro ida laftarkeedaynu deynaynaa format buu yidhi haddaba anigu formatka waan ka bedelayaa REFS baan ka dhigaya waa resilient file system magacana waxaan ka dhigaynaa CCTV ayaan ka dhigaynaa ken-cctv waay marka formatka aynu ka dhigayna waa kaa file systemku sida markii hore sheegay REFS resilient file systemku haddii ay hard disk wax kasii noqdaan ama corruption ku yimaado hard diskku dib ayuu isu kabi karaa samee baan leeyahay dadna waa wuu ii samaynaya marka hard diskiga volumekii ayuu ii samaynaya marka e drive sida C drive iyo D drive iyo ayuu e drive ayuu ii samaynaya edaas maxay noqonaysaa edu waa halka aan markaa ka heli karno diskigeenii dib uga yara baxo iga raali ahada foonka ayaan isticmaalaya mobilkayga waa idinka arka ken-cctv e drive formatkiisuna waa REFS waana 4.465 terabyte haddii aan haddaba kan iska xidho computer managementka oon folder furo oo ka bacdina aan this PC taabto waxaad arki doontaa hard diskigayga cusbaa oo ah 4.36 terabyte hase ahaatee maaha hal diski oo keliya laba aan isu geeyey weeyaan marka sidaas ayaa laysugu loogana bedelaa hard diska server sidaad arkaysan laba diski baynu gelinay labada disk markaad storage pool samaysid aad virtual diskna samaysid aad volumeka oo e ahna aad samaysatid hal diski oo markaa baaxadoodu ay tahay labadii diski oo laysu geeyey ayaa kaaga soo baxaya si aad markaa waxaad doontid ugu shubatid aanay marba markaa labada diski kaaga kala dhammaan
oo ay kuu noqoto mid keliya oo waxaad doonaysa aad ku shubanaysid. sidaan anigu idiin sheegay, halkan waxaa lagu isticmaali doonaa fiidiyoyada CCTV-ga, closed circuit television, oo ah markaa fiidiyoyada dukaamada iyo kamaradaha dukaamada iyo suuqa iyo meelahaad ku aragtaan marka wax dadka laga duubay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysateen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.